السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعن أو ونكسن صاحب يال كسو دوادا مو قال كنا ماتا. waqtigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan uguna muhiimsan nolosha aadamaha. dhammaan arrimaha nolosha aadamigu waxay xiriir la leeyihiin waqtiga laga soo bilaabo dhalashadiisa. ilaahayna wuxuu inoo hibeeyey waqtiga 5 salaadood iyo salaadaha waajibka ah si aynu u ogaano waqtiga una la socono adduunka. marka waqtiyada salaadu waa kuwa jaangoynaya waqtiga qofka muslimka ah. waxaan wada naqaanaa waqtiyada qoraxdu soo baxdo in ay tahay waqti shaqo iyo waqti waxbarasho. qoraxdu marka ay dhacdo waa waqtiga laga nasto daalkii shaqada iyo daalkii waxbarashada, la iskuna diyaariyo in habeenka la seexdo si loo helo nashaad iyo firfircooni cusub. marka aan eegno dhanka kale, salaada lama aqbalo ilaa ay waqtigeeda la galo. shaqaduna lama aqbali doono in ilaa aad waqtigeeda aado, haddii aad tahay shaqaale iyo haddii aadan ahaynba. wax waliba waa in lagu qabtaa waqtigii loogu talagalay, haddii kale waxaa dhici lahayd isku dhexyaac iyo waxqabad la-aan. waxaa inta badan la isweydiin karaa ama maskaxdeena kusoo degdegi karta su-aasha ah, waa maxay qiimaha waqtiga nolosheena? qiimaha waqtiga ee nolosha waa dadka iyo sida ay ugu faa'iidaystaan. haddaan si kale u dhigo, waqtigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee aynu qofku iibsan karin. si dhaqso ah ayuu u gudbayaa, waqtiguna dib uma laabanayo. wax waliba oo ku dhaafana waa sidii ay ku dhaafeen. sidaa darteed waa laga maarmaan in la habeeyo oo la maareeyo oo la maamulo waqtiga sida ugu fiican laguna faa'iidaysan karo oo xikmadaysan. siyaabaha loo habeeyo loona maamulo waqtiga waxaa ka mid ah tallaabooyinka lagu maareeyo laguna maamulo waqtiga. waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo dad badan aysan ku dhiiranayn ama aysan ogeynba. haddii ay og yihiinna aysan ku dhiiran siday waqtigooda u maamuli lahaayeen. sababtoo ah waqtigu waa aaminaad, waa waqti kooban. waa inaan ilaalino oo u isticmaalnaa si faa'iido leh oo aan u dejino mudnaanta maalmaheena si kan ugu muhiimsan loo dhammaystiro. marka kan ugu muhiimsan ayaa ah mid waqti cayiman lagu qabto howlaha iyo shaqooyinka qorshayaasha waaweyn si waxqabad dhaqsi leh loo sameeyo, loona dhammaystiro waxyaabaha ka dhimanaa iyadoo loo eegayo aragti iyo hadaf gaar ah, iyada oo aan dib loo dhigaynin shaqada iyo waajibaadka oo lagu dhammaystiro waqtiga loogu talagalay. iska ilaali wareerka iyo mashquulinta inta aad shaqada qabanayso si shaqada ay u fusho sidii loo baahnaa, iyadoo aan taabanin tafaashiisha ama arrimaha fog ama aan ka dhex bixin wax waxtar u leh shaqada la qabanayo. abaabul waqtiga hab aan wax u dhimeynin nolosha bulshada ama qoyskaaga si uu u helo qofku waqti oo la qaato caruurtiisa, qaraabadiisa, saaxiibadiisa, sidaasna uu isagu miisaamo shaqada iyo nasashada. waqti u samee wax akhriska iyo waxbarashada si aad ugu faa'iidaysato nolosha.